haddii aan macruusay xildhibaan cusub maxkamadiisu waa tahaa cid kasta Soomaaliyeed ha aragto dadweynaha laga waxaa meeshan ka sheegayaa xildhibaanka la xildhibaan xusul aad iyo aad u noogu gufay wallahi billahi tallaahi gafiyada noo geystay qaladku noo galna hadduu nooga soo laaban insha Allah bil kariim anaa kala xisaabtamayna meesha joogan ugu tagi doona insha Allah bil kariim ciidamada macruusleyda la dagaalamay nimanka argagixisada ay khawaarijta ah ee ku soo duulay dadka xoolahooda iyo naftooda iyo maalkooda runtii waa ogeydeen gobolka Hiiraan wixii dhibaato laga soo maray waxa ugu badan ciidamada isxilqaamay oo macruusleyda ay ahaayeen amaalkoodu ma ahayn in baarlamaankii federaalka dadka miduhu ay u adeegsadaan xasaanadoodii inay shabaab ku difaacaan dadkii shacabka ahayna oo ay ku matali lahaayeen kuna dhiirigeli lahaayeen inay khawaarijta la dagaalamaan ay ka dhigaan inay yihiin dad qaldan aad baan wax u nahay ninkii xildhibaanka ah oo xusul dhahayay wixii ka soo yeeray anigana hadda waxaan ku ismiyay ninkaas ma garanayo mas'uuliyad kulleeyto anigu hadda ku sheegay ma garanayo laakiin qabiilkii kursigaas lahaa iyo dadkii uu ku matalay ninkaas doorkoodii ma uusan marsin laakiin waxa muuqata inuu shabaab ku matalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan danayaasha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa iyo cid kasta oo jecel in shabaab la dagaalamo in ninkaas wax laga qabto si ay tusaale u noqoto dadka ka dambeeya asaga inaysan nimankaas ku difaacin xasaanada ay ka hayaan dawladda federaalka Soomaaliya dhammaan dadka jecel inay shabaab Soomaaliya ka laato waxaan codsanaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud u sheega ninkaas inuu wax ka qabto hadii uu ka qawaayeen uu nagu soo wareejiyo annaga wax ka qabanayna maadaama uu shabaab yahay shabaabka duurka ku jira iyo kuwa baarlamaanka kamid ah xasaanada loo waxa waajib in la dilo kuwa dawladda kamid ah xasaanada leh maadaama mid kan baadiyaha ku jira oo difaaca nin oo baarlamaanka kamid ah waxaan yeelaynaa maahan ma u dul qaadanayno ciidamadii loo gafay oo macruusleyda oo salqaanka ah oo dadkooda difaacanay oo diinkooda difaacanay oo dalkooda difaacanayna waa u tacsiyeyna inuu soo warkaas u qaadmin dawladda federaalka uga qaadmin ninkaasna insha Allah taala waa kursigiisa iyo wax dhan dawladda baa ka warsugeynaa soo qadamay dawladda federaalka Soomaaliya wixii ay ka dhahdana aan arkayna ka bacdi hadii wax laga qawaayana kaas anaga waa shaqaysanayna qawaarij waa qawaarij ama baarlamaan ku jirto ama ku jirto baadiyo joogtay abbo qawaarij maxkamadeedu waa tana maxkamadeedu xildhibaan wax cid kasta oo yaana aniga ma ka xishoonay runta u sheegay ninka xusul leeyahay waxa ku jira dadka bixin wallahi billahi tala kaas aan shaqaysanayna inaan ka yeelin in wax uu ku hadlayo aan aragnana inaysan noo qaadmin damiirka nooguna ogolayn waana iska qabanayna annaga hadii aan kala dambeynta sharciga iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wax ka qaban bartu joogan ugu maahayna waan ka howlgaleynaa annaga wadana naga xiranta adeer macaan annaga shabaabna ma waabi karo ma tabaana ka bilowno xorintiis haddana waa dareemi kartaa ilaa maxaasi ilaa beledweyne isku furan hadii aan ugu tala galnana adeer macruusley ma joogto meeshan kaliya meel kasta joogtaa waa wax hadda kuwa ka dagaalamayo dhuumood annaga waa dadan taageersanahay rabno hadii aan awoodnana oo meel u marnayno inaan gurmanayno waa wax oo cadow meesha ka jira moogta laakiin aslan ninkaas waxaan ku deynayna annaga ma jirto hadii uu ka qofku waa qaldamaa uu iska qalaaban oo cadeyn mowqifkiisa annaga waa la dagaalamayna waan iska qabanayna xildhibaankaas waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xukuumadda ugu sareeyo Soomaaliya maanta inuu ninkaas wax ka qabto oo shabaab la dagaalaa dalka Soomaaliya oo dhan xoreyntiisa iyo dadku abaabulkiisa ku jiraan ninkaas shabaab ku difaaca kursiga oo ku fadhiyo qabiilo isku metelin cid kale isku metelin waxaan codsanaynaa oo rabnaa ninkaas in laga qabto oo sharciga iyo baarlamaanka iyo maxkamadda iyo adduunka iyo cid kasto danayda Soomaaliya oo khawaarijta la dagaalama rabtaa naga qabato dil la waayo anaga raadsanayna ninkan waan raadinay xogtiisa iyo deegaamada uu ka soo galay iyo wax walba waan ogaanay xilligii oo nis ay ku milneed shabaab ninkan uu soo galay oo nis ka soo gala baarlamaanka ogaanay oona ninkan Fahad Yaasiin oo si dhow shaqayn u leeyahay saaxiib la yahay ma faham Fahad Yaasiin iyo shabaabna ma la kala sheego waliga gobolka Banaadir oo qaybirsan way nimankan ma faham كل تأييد النزاع هذا مدحوينه وبدلي أو نظام كذي واحد دماي أو كسولية لكن شباب اسمه قريناي كل تنين كاس وحنا أنا عضينا إنه برلمان كسوق على النساء مركي أول شيء فهد ياسين ده ولا دريمي كلا وحنا لا ضيع لما وعرفتيس فهمت waxaa meeshan ka sheegaya xildhibaanka la xildhibaan xusul aad iyo aad noo gufay wallahi billahi tallaahi gafiyada noo geystay qaladku noo galna hadduu nooga soo laaban insha Allah bil kariim anaa kala xisaabtamayna meesha joogan ugu tagi doona insha Allah bil kariim aad iyo aad mahadsantiin soo dhawaada qalad noo galay waxaana ka mudnaa inuu nala maray waxyaabo aanan maleysayna nooga soo yeeray maana ka maleysin xildhibaanka laakiin wuxuu yahay anaa caday doona insha Allah bil kariim anaa la xisaabtamayna macawusley horta maxay